السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الكسود هذا مركله إيه channel كان يوتيوب كا FPL Somali. وأنا جوا أحضر عبد العالي ودين السعود سينية حبين كله وأنا واحد لنا فانتسي بريمير ليج لودكم لاتنكو لودكم لاتن لو. صاحبي يال وحين وصل جوجوز بعيارات كتبنات وحن هرتين بعيارات كويتبنات أو كلهم مهمة العيار دونه أو وحي سبضنت هاي كلن كه أي لو مانشستر سكور كدونان. waxaan ka cudur daaranayaa inaan la soo daahay muuqaalkii ku saabsanaa ciyaareedka tobnaad iyo xaqiiqooyinkiisa iyo waxyaabihii iyo kooxdii ugu wanaagsaneed laakiin hadda waxaan dul maraynaa kooxdii ugu wanaagsaneed ee isbuuc ciyaareedkii tobnaad iyo ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ayaan fiirinaynaa kadibna waxaan gudaha u gelaynaa isbuuc ciyaareedka koob iyo tobnaad iyo kulamada la ciyaari doono iyo kulamada sida gaarka ah maamulayaasha ay u fiirsan karaan saaxiibayaal ku soo biira channelkeena sidoo kale nala wadaaga aragtidiina iyo waxyaabaha isleeyihiin waa u baahanna inaan fiirino oo anagna idinka faa'iidno maadaama fantasy uu yahay wax oo ku dhisan go'aan qaadasho nasiibka iyo in aad aragtida dadka kale iyo kuwa inta isku darsatid go'aan cad oo aad isleedahay ku qanacsantahay aad gaartid haddii aan fiirino markaa saaxiibayaal ciyaaraanka ugu dhibcaha badan toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu ahaa Reece James oo ciyaara kooxda Chelsea. Reece James ayaa ka qayb qaatay in kooxdiisa Chelsea ay 3-0 ay ugu badiso kooxda Newcastle. Reece James waxa uu dhaliyay 2 gool sidoo kale markii loo dhaho dhibcihii dheeraadka ahaa ayuu qaatay sidoo kalena shabaqiisa ayuu ilaashaday. Goolahayaha marka fiirino toddobaadkii la soo dhaafay ugu fiicnaa wuxuu ahaa Aaron Ramsdale oo asna shabaqiisa ilaashaday sidoo kalena dhibcaha dheeraadka ah oo 2 qaatay maadaama kooxdiisa Arsenal ay 2-0 uga badisay kooxda Leicester City. xagga daafacyada Reece James ayaa ugu horeeya oo 21 dhibcood keenay. Gabriel oo isna gool dhaliyay oo kooxda Leicester gool ka dhaliyay ayaa isna keenay 15 dhibcood. Gabriel wuxuu qaatay dhibci dheeraadka ah ee 3 ahaa shabaqiisana uu ilaashaday. Lowton oo ciyaar kooxda Burnley ayaa isna gool dhaliyay oo 14 dhibcood keenay. toddobaadkan Lowton wuxuu ka qayb qaatay in kooxdiisa Burnley ay 3-1 uga badiso kooxda Brentford. Badamile oo ciyaara kooxda Norwich ayaa isna keenay 10 dhibcood. Ciyaaryahankan ayaa gool ka dhaliyay kooxda Leeds oo ay kooxda Norwich kaga badisay 2-1 marka 10kaas ayuu keenay. sidoo kale dhibci dheeraadka ayuu qaatay. marka dhaxda aan fiirino qadka dhexe waxa uu dhibco badan ciyaaryahan Declan Rice oo gool dhaliyay sidoo kalena caawin sameeyay kulankii kooxda West Ham ay 4-1 kaga badisay kooxda Aston Villa. ciyaaryahankan ayaa sidoo kale dhibci dheeraadka qaatay. waxaa kaalinta labaad ku jira markii la qadka dhexe ciyaaraanka da'da yar ee kooxda u ciyaara kooxda Crystal Palace kana Gallagher oo 2-0 inay kooxdiisa Crystal Palace ay uga badisay kooxda Manchester City ka qayb qaatay isagoo goolna sameeyay gool kalena dhaliyay sidaasna 13 dhibcood ku keenay dhibci dheeraadka ayuu qaatay. ciyaaraanka kale ee qadka dhexe ee dhibcaha fiican keenay oo 12 dhibcood keenay waa Jared Bowen oo ciyaara kooxda West Ham isagoo keenay 12 dhibcood gool ayuu dhaliyay gool kalena wuu sameeyay. Henderson ayaa asna keenay 10 dhibcood. Henderson ayaa asna gool dhaliyay sidoo kalena dhibci dheeraadka ah 3 ahana qaatay. ciyaartii kooxda Liverpool ay 2-2 la gashay kooxda Brighton. ciyaarahan Jorginho ayaa asna gool dhaliyay sidoo kalena dhibci dheeraadka qaatay 10 dhibcoodna keenay maadaama kooxdiisa 3-0 ay uga badisay kooxda Newcastle. marka la weeraryahanada ciyaarahan Cristiano Ronaldo ayaa goolashiisa soo celiyay isagoo sidoo kalena gool kalena dhigay oo 12 dhibcood sidaas u keenay. saaxiibayaal inta hadda ugu gudubno isbuucaareedka tobnaad isbuucaareedkan horteena ah waxaa la ciyaari doonaa kulamo muhiim ah oo maamulayaal badan ay aad ugu bursuugayaan sida kulanka ay labada Manchester isku arki doonaan. toddobaadkan waxaan xasuusinayaa in kama dambaysta ay soo hormari doonto oo kulanka ugu horeeya la ciyaari doono maalinta Jimcaha ah habeenka ay Sabtida soo galayso waxaana sarki doona kooxaha Southampton iyo Aston Villa. maalinta Sabtida waxaa ku xiga kulanka early kick-off-ka oo 9 saac bar la ciyaari doono waa kulanka labada Manchester isku arki doonaan ee Manchester United iyo Manchester City oo kulankaas wuxuu ka dhici doonaa garoonka Old Trafford. Brentford iyo Norwich ayaa sarki doona. Chelsea iyo Burnley ayaa iyaguna sarki doona. Crystal Palace iyo Wolves ayaa sarki doona. Brighton iyo Newcastle ayaa sarki doona. maalinta Axadda ahna waxaa sarki doona kooxda Arsenal oo martigelinaysa kooxda Watford. Everton iyo Tottenham oo sarki doona. Leeds iyo Leicester oo kulmi doona iyo kulanka ugu dambeeya maalinta Axadda ah oo uu noqon doono kulanka isku arki doonaan West Ham iyo kooxda Liverpool.
صاحب yaal marka haddii aan fiirino si gaar ah kulamada maamulayaasha isdhihi karaan dhibco muhiim ah ayaad ka heli kartaan waxaa ugu soo horeeya kulanka maalinta jimcaha ah la ciyaari doono waa Southampton iyo Aston Villa. Southampton iyo Aston Villa waa laba koox oo hadda qaybaha hoose ku jira gaar ahaan kooxda Aston Villa qaybta xil ciyaareedkan iyo xil ciyaareedka hore farqi ayaa u dhaxeeyay oo waxaa saameyn ku yeelatay ka tagistii uu ka tagay Grealish. taasna aad ay u muuqataa qaab ciyaareedkooda weli ishaysi badan oo saas u fiican waa laga leeyahay hoos u dhac iyo sare u kac ayuu leeyahay dhinaca Southampton laftooda ayaga laftooda aad uma fadhiyaan laakiin Southampton isbuuc ciyaareedadii afraad oo kale iyo kii ku xigay waxa ay kooxo weyn ay dhibco ka qaateen marka taasoo marka fiirisid horyaalkan iyo kooxaha weyn kooxda yar markay dhibco ka qaadato kooxaha yarna ay baraajo iyo wax walba ay ka qaadato in kooxdaasi ay badbaadayso marka Southampton ciyaaryahanada sida gaarka loo fiirinayo waa kabtanka kooxdaasi Ward-Prowse ayaa ah iyo goolahayaha kooxdaas oo badbaadin iyo waxyaabo badan sameynaya xaggan Aston Villa goolahayahooda ayaa ah kan aadka loo doortay oo doorashadiisa markaa fiirisid ay maamulayaasha inta badan ay haystaan markaan fiirino kulanka maalinta Sabtida ugu soo horeeya ay isku arki doonaan Manchester United iyo Manchester City kulankaasi waxa uu xagga Manchester United markaan fiirino waxa rajo wanaagsan ay soo gashay ninka lagu waco Ole Gunnar Solskjaer oo qaab ciyaareedkii wax ka bedelay oo 3-5-2 ciyaaraya markaan aniga shakhsiyan waxaan aad u jeclaaday yani dhinaca daafac marka laga soo tago xagga qadka dhexe iyo weeraryahanada uu isla soo bilaabay oo ah Cavani iyo Cristiano Ronaldo inuu isla soo bilaabo waxa ay dhinaca fantasiga ay faa'iido u tahay ciyaaryahan Bruno Fernandes oo qaab ciyaareedkiisa hoos u dhacay markaan waxaa suuragal ah in qaab ciyaareedkiisa uu kor u kaco Bruno Fernandes sidaan ognahay Janis abuurista ilaa hadda waxa uu sameeyay in ka badan 30 Janis ayuu sameeyay xilli ciyaareedkan kaliya marka waxa yareyd dadka ka faa'iideysanaya xitaa kulanka hadda ugu dambeeyay ee Champions League waxa uu sameeyay caawin marka Bruno Fernandes markan wuxuu noqon karaa door fiican oo maamulayaasha il gaar ah ku heen karaan maadaama labadan ciyaaryahan ay wada ciyaari doonaan haddii Ole Gunnar Solskjaer uu sii wado inuu isla ciyaarsiiyo Cavani iyo Ronaldo taasoo wax badan ka bedeli karta sida Manchester United qaab ciyaareedkeeda ama xil ciyaareedkeeda uu noqdo xagga daafaca markaa fiirisid 3 difaac ayuu ciyaaray kulanka hadda ugu dambeeyay ee kooxda ay ka soo beesay kooxda Tottenham laakiin waxa dhaawac ka galay Varane ayaa dhaawac ka galay lama garanayo waxa uu noqon doono hadda markaan inuu ku soo celin doono oo Bailey Maguire iyo Lindelof uu ciyaarsin doono in kale laakiin haddii uu sida hadda difaac xashada mar Antonio Conte uu ka hadlayay 2017 difaacashada ayaa waxa uu sheegay in ay doqonnimo tahay in ciyaaryahan ama koox ama tababare uu kaga hortago kooxda Manchester City difaac la'aan marka haddii uu difaaca sii adkaysto waxa suuragal ah in kooxda Manchester City uu dhaawac gaarsiin doono iyadoo marka la rikoorka Ole Gunnar Solskjaer Pep Guardiola aad u fiican yahay oo kulamo muhiim ah uu ka badiyay dhinaca Manchester City marka fiirino ciyaaryahanada qaab ciyaareedka De Bruyne iyo Grealish iyo ciyaaryahanadaasi qaab ciyaareedkoodu sidii la filayay ma aha xilli ciyaareedkan waa isbedel ayaa ka muuqdo gaar ahaan ninkan waa loo cudur daaran karaa Grealish oo kooxda weli ma uusan fahmin ayaa la dhihi karaa laakiin De Bruyne dardartii looga bartay iyo saameyntii looga bartay aad uma muuqato xilli ciyaareedkan ciyaaraanka da'da yar ee Phil Foden wuxuu ka mid yahay doorarka ugu fiican ee toddobaadkan laga qaadan karo kooxdaas Manchester City isagoo oo saameyn ku yeeshay kulamadii hadda dibadda ay ku soo ciyaaraan kooxda Manchester City oo dhibco fiican u keenay kooxdaasi Manchester City markaan halkaas ugu soo gudubno waxa kulan kale oo asna muhiim ayaa jiro Brentford oo arki doonto kooxda Norwich City Brentford kulanka hadda ugu dambeeyay waxa ka soo beesay Burnley laakiin kulankan waxay la ciyaari doonto kooxda u hooseysa horyaalka oo inta badan ilaa hadda wax guul aan gaarin dhibceedana baraajo oo kale ku helaysay marka Brentford waxa suuragal ah in ciyaaryahanada weeraryahanada in ay markaan ay ka faa'iideysan karaan fursadan oo ay dhibco ka keeni karaan kooxda Norwich City haddii aad difaacyada oo kale ka haysatid difaacyada waxa ay ka mid yihiin kooxdan Brentford kuwa dhibcaha keenay sida Pinnock oo kale dhibca ay keenayeen waa sii haysan kartaa islahay kulankaana waa fiirin kartaa kulanka kale waa Chelsea iyo Burnley kooxda Chelsea qaab ciyaareed fiican ay ku jirtaa kaalmaha hore ay ku jirtaa waliba kaalintooda ay ku jirtaa xagga daafacashada
oo daafacyada waa kuwa ugu wax soo saarka badan dhinaca goolasha marka la dhaho Reece James iyo Chilwell xitaa waxay noqon karaan doorar ay maamulayaasha xitaa kabtanka ku aamini karaan sida khubarada ay fantasy-ga ay aaminsan yihiin marka halka laga fiiriyo waa koox aan is dhihi karno kooxda Burnley lafteeda oo ayadana dhinacaas iyo daafacashada iyo ciyaaraha physicalka ah aad ugu fiican laakiin Chelsea oo hadda ay iskugu toosan tahay tababarto Tuchelna oo aad iyo aad ugu qanacsan yahay yani qaab ciyaareedka waxa uu hadda aad iyo aad u ciyaarsiyaa ciyaarana Loftus-Cheek wuxuu noqon karaa door farqi ayuu noqon karaa Mount ayaa xanuun la maqnaa kulamadii hadda la soo dhaafay waxa suuragal in kulankan uu soo laabto dhankaasna waa la fiirin karaa ciyaaryahanna Chris Wood iyo Barnes labadaas waxay noqon karaan ciyaaryahanada farqiga ah ee dhinacaas ka keena saameynta ka yeesha ay noqon karaan Crystal Palace iyo Wolves ayaa isna kulan kale oo jira maalin sabtida kamid ah kulankaasi waxa si gaar ah u xusaya ciyaaryahankana Gallagher iyo Zaha iyo waliba Odegaard waxa ay kamid yihiin ciyaaryahanada uu ku duulayo tababare Patrick Vieira oo kulamo hadda muhiim ahaa sida kulanka ugu dambeeyay laba yeer ugu soo badiyay kooxda Manchester City dhibco fiican qaadanay ciyaaryahanadaas doorar fiican waaye oo farqi noqon kara toddobaadkan dhanka Wolves marka fiirisid Jimenez iyo ciyaaryahan Wang oo ayagana saameyn ku lahaa dhibcihii ugu dambeeyayna u keenay kooxda Wolves Brighton waxay kamid tahay kooxaha ugu fiican dhinaca kubad ciyaarista marka fiiriso Reelka Ingiriiska tababar Graham Potter bandhig fiican ayuu sameeyaa kulanka ugu dambeeyay waxa uu 2-2 la galay kooxda Liverpool kulankaana wuxuu wajahayaa kooxda Newcastle xaaladda wali ay ku xun tahay oo kaalinta ugu dambeysa ee labaad fadhida ayaa uu ka hor imaanaya markaan ciyaaryahan Trossard wuxuu kamid yahay doorarka ugu fiican ciyaaryahanka kale ee Dunk asna wuxuu kamid yahay xagga daafaca marka fiirisid doorarka ugu wanaagsan ay ku jiraan ciyaaryahan kale farqi ayaa jiro Lallana laba caawin ay ku sigtay inuu sameeyo hal kaliya ayaa u soo gashay toddobaadkii la soo dhaafay marka dhinacaasna waa la fiirin karaa maalinta axad ahna waxaa ciyaari doona kooxaha Arsenal iyo Watford ayaa ugu soo horeeya Arsenal waxay ka hor imaanaysaa kooxda Watford oo iyadana xaalad adag ku jirta hadda tababar iska bedeshay kulanna 5-2 lagu badiyay kulan ku xigayna sidoo kale 5-2 ku badisay kulan ku xigayna laga soo badiyay marka kooxda Arsenal qaab ciyaareedkeeda hadda isbedel ayaa ka muuqda kulankii Leicester ee 2 Everton oo badisayna waji kale ayuu muujiyay oo ah in kooxda Arsenal markaan ilka lagu fiirin karo oo ah in ay kaalinteedii hore Europe ay soo ceshan karto ayaa muuqata sida hadda qaab ciyaareedkan hadii ay ku sii jirto ciyaaryahanada marka gaarka ah hadda qaab ciyaareedkaas saameynta ku yeeshay waa labada ciyaaryahan da'da yar iyo difaacyada isfahansan ee afarta ah ee hadda ku soo biiray waa Smith Rowe iyo Saka iyo goolhayaha Ramsdale Tomiyasu Gabriel iyo Ben White ciyaaraanka kale ee Tini waa dhaawac ayuu ku maqan yahay laakiin booskiisa hadda Tavares ayaa bedelay oo isna farqi noqon kara oo door farqi ah dhinaca weerarka ku fiican oo isna maamulayaasha farqi u noqon qiimihiisu waa 4.3 oo waxa uu noqon karaa farqi goolal ka imaadaan ciyaaryahan Aubameyang iyo Lacazette oo hadda la isku soo bilaabay taasna saameynteeda toddobaadkii hore aan ka hadlay ayadana waa mid kale muhiim ah oo maamulayaasha si gaar ah ay il gaar ah ugu fiirin karaan kooxdana waa Watford waxa soo gala marka inay meeshaasi dhibco ka keenaan kulanka kale waa Everton iyo Tottenham ayaa wada ciyaari doona Everton kulanka hadda ugu dambeeyay waa laga soo badiyay kulankana sidoo kale Tottenham waa laga soo badiyay tababaraheedii waa la ciiriyay Antonio Conte ayaa tababar loogu soo dhigay marka waxaa suuragal ah in inta badan markii koox ay tababaro cusub yeelato maalinta ugu soo horeysa inta badan way badiyaan oo si la yaab leh ay ku badiyaan marka kulankana marka fiirisid kooxda Tottenham taariikh ahaan ciyaaryahan Kane waxa uu ka soo dhalin jiray goolal markii la dhaho kulamadan dibadda uu ku soo ciyaarayo ee garoonka Everton uu ku soo ciyaarayo marka Harry Kane iyo Son waxay noqon karaan kuwa ka faa'iideysta fursadda uu siin doono tababare Conte oo meeshaasna dhibco ay ka keeni karaan kulanka Leeds iyo Leicester City oo iyagana maalinta axad la ciyaari doono Leicester City oo kulanka Europe soo ciyaartay iyo kooxda Leeds oo nasatay toddobaadka ayaa iska hor imaanaya dhankaasna dhibco muhiim ah ka iman kara
dhinaca Leeds ciyaaryahan Rafinha waa hoggaanka marka la dhaho dhinaca fantasiga ee haysashada ee kooxda Leeds iyo Muslera oo ah goolayaa iyo Rodrigo oo booskii Bamford hadda maamulayaasha u taagan iyo dhinaca Leicester City ciyaaryahan Vardy isagoo hadda kulamada hadda ugu dambeeyay wax gool aan dhalin laakiin ilaa iyo 14 dhibcood ayuu ka keenay kulankii hadda xilli ciyaareedkii hore uu la soo ciyaaray labadii kulan ee ka hor imaaday kooxda Leeds markaas waxay noqon karaan in Henacho laftiisa waxa uu noqon karaa door kale oo farqi ah oo maamulayaasha ay ka faa'iidi karaan dhibcihiisa kulanka ugu dambeeya toddobaadkan waa kulanka ay isku arki doonaan kooxaha West Ham iyo kooxda Liverpool oo iyadana guul fiican ka soo gaartay kooxda Atletico Madrid isbuucii Champions League kooxda West Ham ciyaaryahaneeda dhinaca weerarka difaaca waa si gaar ah Cresswell iyo Antonio waxay ka mid yihiin maamulayaasha inta badan ciyaaryahanada ay dhibcaha kaga xisaabtamayeen West Ham iyo markaa fiirisid Liverpoolna waxaad moodaa in kooxda Liverpool aad u awood sareyso dabcan waa kala fogeen haddana kooxda West Ham xilli ciyaareedka la soo dhaafay qaybtiisa dambe iyo waliba xilli ciyaareedkan sidii ku bilaabatay dardar xoog leh ay ku bilaabatay marka kulankii hadda ugu dambeeyay ee labadan koox ay wada ciyaaraan waxa uu ku soo dhamaaday 3-1 kulankaasoo Salah uu wacdar ka dhigay oo gool qurux badan uu ka dhigay marka kooxda Liverpool xagga Salah waxaa suuragal ah in saameyn uu ku yeesho oo dhibco uu ka keeno Mane iyo Jota oo labadooda mid la ciyaarsiin doono iyaguna waxay ka mid yihiin maamulayaasha kuwa ay dhibcaha gaarka ah ay ka filan karaan Firmino oo isna markaan soo laabashadiisii kooxda yani dhadhan kale u yeelay ayaa isna wuxuu ka mid yahay kuwa sida gaarka ah ay maamulayaasha u fiirin karaan markaan fiirino kulamada sida gaarka ah aan ka baxno oo aan u gudubno doorashada kabtanka toddobaadkan waxa ugu horeeyo dabcan Salah waa hogaamiyaha fantasiga ilaa hadda haddii ka fikiraysid sidoo kale farqi waxaa la sameyn karaa oo dhinaca Chelsea oo kale difaacadooda Kai Havertz wali wuxuu ka mid yahay door kale oo kabtanka lagu aamini karo sidoo kale ciyaaryahan Harry Kane wuxuu ka mid yahay kabtanada toddobaadka oo maamulayaasha ay kabtanka ku aamini karaan waxaa kaloo kabtan lagu aamini karaa oo toddobaadkan asna koox fiican oo dhibco ka keeni karo ka hor imaanaya ciyaaryahan Pierre-Emerick Aubameyang oo isna kooxdaas ka hor imaanaya maamulayaasha oo farqiga ka fikiraya ayagana waxa ay saaran karaan ciyaaryahan Rafinha Jota laftiisa wuxuu ka mid yahay kuwa maamulayaasha saaran karaan oo Jota qiimihiisu waa 7.5 xitaa Son wuxuu ka mid yahay doorarka ayagana maamulayaasha ay saaran karaan ilaa hadda qiimihiisu kor ayuu socdaa Son oo 10.2 ayuu marayaa saaxiib yaal markaa wixii aragtiya oo aad qabtaan iyo wixii dheeraad oo ku dari kartaanba hoos noogu soo qora intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa saaxiib yaal weli haddii aad channelka aadan furin qaybta notificationka fadlan furo sidoo kale waxaa jira group WhatsApp ah oo aan isku wareysano asagana nagu soo biir aad iyo mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.